Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka cilmi baaris. Muuqaalkeenan waxaan kaga hadlaynaa 5 ka mid ah dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee caalamka. Ka hor intaan u gelin faahfaahinta muuqaalka, like saar muuqaalka siina share garee. Sidoo kale subscribe saar channelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale. 5 dhacdo oo ka mid ah kuwa dunida ugu la yaabka badan. Lambarka 1, Ra'iisul Wasaarihii la waayay. Harold Edwards oo soo noqday ra'iisul wasaarihii dalka Australia sanadihii 1966 ilaa 1967 ayaa la waayay mar qura isagoo hal sano xilka haya. Xilli uu ku dabaalanayay badda ilaa maantana lama helin meydkiisa. Waana mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa caalamka. Lambarka 2, askarta dhimashada. Ka hor dagaalkii labaad ee adduunka, ciidamada badda dalka Romania looma soo xiri jirin tababarka marka ay dhamaystaan ilaa hal qof oo guutada kamid ah uu dhinto tababarka una dul qaadan waayo adayga tababarka. Haddii aan qof dhiman, looma soo xiri jirin guutadaas tababarka ilaa dhimasho laga helo. Waxaana taas ka sii yaab badneed iyagoo og ay ciidamadu qoran jireen askarnimada. Dhaqankaas ayaa hadda laga joojiyay waddanka Romania. Lambarka 3, diiqa mucjisada. Waxaa jiray diiq loogu magac daray Miracle Mike oo dadka muslimiinta ay ka aamineen inuu ahaa mucjiso rabbaani ah, halka dadka diimaha kala haysta ay ku dareen buugaagtooda la yaabka dhacdooyinka. Diiqan ayaa noolaa 18 bilood isagoon madax lahayn oo madaxa laga jaray intii u dhaxaysay 1945 ilaa 1947. waxaana diiqaasi lahaa nin lagu magacaabi jiray Lloyd Olsen. Lambarka 4, doorashadii ugu musuqmaasuqa badneed adduunka. Madaxweynihii hore dalka Liberia, Charles King, wuxuu ahaa madaxweynihii ku soo baxay doorashadii ugu musuqmaasuqa badneed adduunka. Doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday dalkaasi Liberia ayaa wuxuu helay 234,000 oo cod, iyadoo dadka codeeyay ama kaararka qaatay ay ahaayeen 15,000 oo qof. Doorashadaas ayaa lagu qoray buugga dhacdooyinka caalamka, iyadoona loo aqoonsaday doorashadii ugu been abuurka badneed adduunka uguna musuqmaasuqa badneed. Lambarka 5, arooskii ugu lacagta badnaa. Wiilkii lagu magacaabi jiray Prince Charles iyo xaaskiisa Diana oo ka dhashay qoys boqortooyo ayaa arooskooda ku baxday lacag ka badan $110 milyan. waana arooskii ugu lacagta badnaa ee abad bini aadam dhigto. ilaa maantana ma jiro qof iskoorkaas jabiyay. haddii aad danayso muuqaalada noocan oo kala ah, fadlan ku soo biir kanaalkan cilmi baaris oo taabo calaamadda subscribe-ta si aad ula socotid muuqaalada kale aan soo geli doono. waad ku mahadsantahay daawashadaada.